السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkani waa Fahan Academy magaciiguna waa Axmed Cabduqaadir Xuseen. wali waxaynu ku guda jirnaa barashada erayada ugu muhiimsan luqadda Englishta A to Z. waxaynu maraynaa vocabulary part 29. waxaynu maraynaa xarafka I. waana cashirkii ugu dambeeyay xarafka I. waxaynu sii gudbi doonaa J hadduu ay bakaraal noqdo. duruustan waxaynu ka soo bilaabnaa A. waxaynu gaarsiin doonaa hadduu ilaahay karaal noqdo ilaa iyo Z. intaan hore u gelin darsigeena ardaygii doonayo inuu si online ah ku barto luqadda Englishka wuxuu si toos ah ula xiriiri karaa WhatsApp numberkan shaashada ka muuqda. halkaas uu ka heli doono ardayga casharo tusaale iyo warbixin dhammaystiran. waxaynu qaadanaynaa arday cusub haatanna aynu guda galno cashirkeena. Investigate verb to examine a crime, problem, statement, etc. carefully, especially to discover the truth. Invite verb to ask someone to take part in or join an event, organization, or gathering. Investigate waxa weeyaan verb waa fal ama ficil micnaheeduna waxa weeye to examine a crime in la baaro dembi, problem, statement, etc. dhibaato iyo statement ama warbixin iyo wixii lamid ah. Carefully, especially to discover the truth. waliba si taxadirna loo baaro carefully, especially qaasatan to discover in shaaca laga qaado the truth waxyaabaha dhabtahay runta ah. marka investigate waa baaritaan. Invite verb to ask someone to take part in or join an event, organization, or gathering. Invite waxa weeyaan verb ficil micnaheedu waxa weeyaan to ask someone to take part in qof la weydiiyo inuu kasoo qayb qaato or join an event ama kusoo biiro dhacdo event la sameynayo, organization ama urur, or gathering ama isku imaansho. Invite waa casuumid. Invite waa casuumid. Involve verb to take part in, to become a part of, to include. Involve verb to take part in, to become a part of, to include. Iron noun, a strong hard metal used to make machines or tools. Involve waxa weeyaan verb ficil to take part in ka qayb qaadasho, to become a part of inaad qayb ka noqoto, ama to include lagugu daro ama lagu daro. marka involve waa qayb ka noqosho, lug ku lahaansho, ka qayb qaadasho. Iron noun, a strong hard metal used to make machines and tools. Iron marka waxa weeyaan noun magac, a strong hard metal waa bir adag used loo isticmaalo to make in laga sameeyo machines makiinadaha, matoorada iyo wixii la midka, and tools iyo qalabka. marka iron waa bir. Island noun, a land area with water all around it. Issue noun, an important problem or subject that people are discussing or arguing about. Island waa noun. Island waa dhul gebigiisba ay hareereeyeen biyo. marka island micnaheedu waxa weeyaan jasiirad. Island waa jasiirad. Issue noun, an important problem or subject that people are discussing or arguing about. Issue waa noun magac weeyaan micnaheedu waxa weeyaan dhibaato muhiim ah ama subject that people are discussing or arguing, arrin dadku ay ka munaaqashoonayaan, ka doodayaan weeyaan. Issue marka waxa weeye arrin. Islandna waa